arrintaa la wada konsensada waxa weeye guddi doorasho dhisan oo technical oo lacag lagu bixiyo oo la aaminsan yahay oo dastuuri ah taladu keenay waad ogtay waa in taladu keenay la qaataa sababtoo waxa weeye daraasad buu ku sameeyay waxaa dhisan barlamaan waxaa dhisan madaxweyne waxaa dhisan xukuumad baa dhisan intaas daynaan aaminsanayn oo aynu rabno beelihii inaan ku noqono bal horta marka ugu horeysa intiina halkaan fadhida iyo inta Soomaali oo maqan beel walba qof baa barlamaanka kaga jira ama 2 qof ama 3 qof ama 5 qof ama 10 qof ama 20 qof maxaad u soo dooranaysaa daynaan aaminayn warbahashu maaha aan sii jooga maaha aan sii jooga macna male qaran baynu ka hadlaynaa ma adduunka miyaad aragteen dawlad dadkii xukumayay markii muddadii la gaaray iyadoo aysan dhamaystirnayn hawlihii doorashadu iska tago yiraahdo waa ka baxay xafiisyadii maxaa dhacay markaas dagaal baa dhacay Soomaa waa fawdo Soomaa ma fawdaynu waligan ku jiraynaa 30 sano ku jiray aan aqlisanno jacaylka qabiilku oo hadba heer ah oo markuu gobol joogana heer ah oo markuu qaran joogana heer ah oo markuu jifo joogana heer ah warinta iska dayno aynu horta dawladnimada aaminno dawladdan tabarta yar waxay u tabar yaraatay wallahi inaysan wax kala ahayn arta 20 sano laga joogaa 20 ka sano qaabeeleedkaas wax lagu soo doorto baa dawladda Soomaaliya billa Soomaaliya u dhaafilada ogaada maalinta doorasho la galo oo qof iyo cod la aado dawlad Soomaaliyeed oo rasmi ah imanaysa yey kaamil ahaan haday rabto corruption dhacaan haday rabto laakiin waxay dhaantaa anigu reer hebel baan matalahayaa xildhibaan ah anigu wasiir baan reer hebel ah waagan wasiirka ah dawladda carta yaa waxaan ka hadlay xabashi qabsatay Baydhabo wasiiradii ugu la jiray oo halka ka soo jeeday baa maxaa kugu jira adiga Baydhabo burca wax ka dhacaan waa ka hadlay wasiiradii burca ka soo jeeday adeer maxaa kugu jira burco wardaanu wasiir baan wasiir Soomaaliyeed baan war mushkiladan aynu kala saarnaanahay dawladnimadii qabiilka hal laga baxo waa qodob marka ama dawladda qaanuun baan aadayna ama dawladda qabaliyada sidaan hadda nahay walaashay anu arta asaasiyaashoodii baan fikirkan Ismaaciil Umar Geelle ana ku dhalay inuu noo qabto shir wax badan baan isbedelay waaga lama wada hadli jirin qabaa'il baa diriri jiray laakiin 20 sano anigu ma ahayn dawladdu kuma aanan jirin oo yar information dawladdii Baydhabo joogtay markii ay keentay Ethiopia anigu waa ka tagay shaqo jacayl ugu ma jirinin waa marxaati baa la iga yahay dadka halkan fadhiya waxaan tagay Asmara dagaalkii laga xoreeyay magaalada Muqdisho ciidamada Ethiopia ka qayb galay 10 sano ku maqnaa hadda ay ugu horeysa aniga ku soo galay barlamaan haddana waxaan rajaynayaa inaan wax badan ku soo kordhiyay muxuu ahaay siyaasadda Soomaaliyeed kullay in la sheego ma fiicno Soomaalidu ku yiraahda nin isfaansho wari gees jaban laakiin wararkaygu banaanku yaala waad ogtahay muxuu ahaa marka waan dadaalaya inta ku jiro anuguna hadii waxaan ku sheegayaa waxaan ugu jiraa siyaasadda Soomaaliya inaan wax ka soxo 10 shahaadaan haystaa beeraley baan ahay aqoonyahan baan ahay meesha raba ka shaqaysan karaa shirkad baan leeyahay baan siyaasadda Soomaaliya laakiin dawladda Soomaaliyeed baan rabaa aad ma santaagna oo qeylad aaminay xildhibaan Zakariya kamid ah oo xasan sheekh xilka laga rido xilka soo wareejiyo lahaa khudbadiisina waaba dhageysateen oo maleynaa marka xildhibaan Zakariya markii in adeerkiis joogana hal la joogo yaan la isbla gaadhay qabiilkii fiir hal kala helo adeerkay ma afrmaan dabcan baan isugu tagnaa waxaan rajaynayaa hadalka inaad kala heshaan qof mar qaato hadalka xildhibaan Zakariya xukuumadii aan aniga ka tirsanay madaxweyne xasan sheekh waxa aad ka tiri qof walba waa og yahay intaan marqaati ka tahay marka de documentu asaa is sheega waxa la rabaa markii adiga ay ku miisan taana extension hal la sameeyo markaan dhamaysto warkaaga waa tiri inaan war u adkaysan waran u adkaystaa leeyahay waxaa la rabaa markii ay adiga ku miisan taana oo qabiilkii meesha ma hada qabiilkii fiiri qabiilkii waana naga wacdinaysaa jeebkoona kaaga buuxa marka waxa la rabaa adinkoo mahadsan ma hada dil ii jawaab waa jawaabi adinkoo mahadsan doodan waxa waaye political debate ma aha academic debate waaye ya adinkoo aad u mahadsan academic debate waaye political debate ma aha marka waxaan rabnaa academic debate waxaan rabaa fiiri qabiilka Soomaalida sida xildhibaanka saaxiibkeeya uu wajigana uga tiranaya caloosha uu buuxeen oo wada buuxa marka caloosheedu ka warqaba ma adkaysan karo odagu miska daaya xildhibaan Zakariya adigoo mahadsan waqti aan siino odawaa waqti aan siino barnaamijka iska daayaan anigu kuma soo qaadin intaan hadlaayay maxaa iga rabtaa aniga
waxaan sheegayaa wacdiga aan runtaa inaan diidana wax yar waxaan codsanaynaa qofka 3 daqiiqo in loo daayo oo uu dhamaysto sidaasaan codsanaynaa xildhibaanka waa ka leexanaya waa koraan u qaadaya dood dad u dhigatay kursiga aan aniga ku fadhiyo dad xaflada u dhigtay midka madaxweyne farmaajo ku fadhiyana dad xaflada u dhigtay 4 sano haddii ay dhaafto dastuurka 4 sano noogu qoran sida la sheegay waxaa la iska rabay doorasho qof iyo cod ah doorashadii qofkii codka ah shaqo lagama qaban maalin guddiga doorashooyinka qaranka baarlamaanka u yimid sanad iyo 9 bilood aan u baahannahay si aan doorasho qof iyo cod u qabanno way in reality haddii sanad iyo 9 la bixiyana oo iyo 9 bilood la bixiyana ma la qaban karo maadaama aan la qaban karin doorashada qofka iyo codka ah waxaa jirta si loo soo macaamili jiray 20 sano la soo dhaafay waxaa la yiraahdaa in laga heshiiyo qaab doorasheedka dhici kara 2016 sharcigan ruuxiisa hadda uu ka hadlayo waxaana sheegay xildhibaan cige saaxiibkay sharcigan dastuurka waa qoraa laakiin waxaa la isla gartay waxaan rabaa inaan hal arrin muhiim ka dhawaajiyo Soomaaliya waxay hadda ku degan tahay waxa weeye qor isu dhiibka siyaasadeed